بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته magacaygu waa Antar Sayid Xuseen waxaan barakahay xarunta Baafo ee magaalada Muqdisho waxaan soo barnaamijkeeni yahay basic computer skills oo aan ku baranayna qaab computerka loo isticmaalayo waxaan soo wadnay casharada ugu dambeeyay barnaamijkan Word-ka cashirka ka horeeyay waxaan ku soo aragnay find waxay noqonaysaa markii aad rabtid in aad eray amba erayo aad baaraysid dokumentiga aad qoratay qaabka uga raadi lahayd si taas waxa u maanaysaa home kadibna findigaas ayaa hal mar gujinaysaa amba control f na waad taaban kartaa meesha waxaan ku qoraynaa erayga aan raadinayno haddii uu yahay erayga aan raadinayno name oo kale waan ku qoraynaa hore wuxuu ka sameynayaa wixii rasalta ayuu soo tuuraya aba meelaha uu ku arkay dokumentiga ayuu meeshan kugu soo taxaya dhinacan warqadda aad fiirisid erayga aad raadinaysid color huruuda ayuu ku marinayaa wuxuu ku leeyahay waa la helay haddii aan gujiyo har ayuu saarayaa hadba meesha ku jiro haddii aan gujiyo kan hoose waaye kankii ka koreeyay kankii ka koreeyay qaabkaas waa ku raadi kartaa oo ku dooran kartaa sidaas la mid ah isticmaali kartaa next previous haddii aad taabto midka ku xiga ayuu har ku saarayaa haddana haddii aan previous ka riixo amba falaarta kor u jeeda aan riixo kor ayaan u soo soconaynaa marka magacii la helay meelaha ku jiro markii aadaysid ayay noqonaysaa marka qaarkood waxa laga yaabaa inaad u baahan tahay markii waxa aad raadinaysid aad heshid inaad isbedel ku samaysid in magacii aad raadinaysid amba erayga aad raadinaysid eray ka duwan inaad rabtid inaad meesha aad ku bedeshid markaas oo kale waxaan isticmaalaynaa replace si taas waxaan u maanayaa home kadibna replace kaas ayaan hal mar gujinayaa dialog box kan ayaa kacayo wuxuu iskugu jiraa find iyo replace iyo go to aadida ay noqonaysaa findigi raadintii replace ku bedelidii hal mar ayaan xirayaa keyboard shortcut aad isticmaalaysid control h ayaa taabanaysaa si uu kugu soo qabto dhinacaana waxaan u socodsiinayaa bal marka hore waxaan raadinaynaa magacan loo yaqaan Antar ayaan raadinaynaa waxaan leeyahay bal raadi waxaan taabanayaa find marka haddii aan next taabto magaca Antar kan ugu horeeyo kan ku xigo marka waxay noqonaysaa magacii Antar ahaa dokumentiga meelaha uga jiro inuu ka raadiyo haddii aan replace aan rabno oo magacan aan rabno inaan wax ku bedelno meeshan waxaa isticmaali kartaa waxa aad raadinaysid inta ayaa ku qori kartaa sidaas la mid ah waxa aad ku bedelaysid inta ayaa ku qoraysaa bal marka hore magacan Antar waxaan ku bedelaynaa Cabdi marka waxaan qorayaa Cabdi dhammaan dokumentigan wixii Antar haddii aad u baahan tahay inaad Cabdi ku bedeshid replace all ayaa taabanaysaa haddii kale waxaa samayn kartaa hal xab ayaa u bedeli kartaa tusaale ahaan waxaad raadinaysaa magaci meesha ku jiro dokumentiga marka findiga aad taabatid oo aad soo heshid find aad dhahdid aniga ma rabo Antarka hore inaan bedelo waxaan rabaa Antarka labaad inaan bedelo kadib ayaa waxaad taabanaysaa amarka keligiisa oo replace marka Antarkan labaad ee leenka labaad ee dokumentiga ku jiro waxa ku bedeshaa Cabdi replace ayaan taabanaya kaliya Cabdi ayaa lagu bedelaya Antarada kale waa joogaan haddii aad rabtid dhammaan wixii Antar inaad Cabdi ku bedeshid hal mar automatic dokumenti dhan saameyn ayay ku yeelanaysaa markaas waxay noqonaysaa replace all inaad taabatid marka hadaa fiirisid wixii Antar replace all haddii aan taabano wuxuu leeyahay 4 Antar ayaa waxa loo bedelay Cabdi marka 4 joor ayaa la arkay Cabdi aan lagu bedelay waxa sameey kartaa replace ka ayaa waxa ka isticmaali kartaa raadintii bedelida tusaale ahaan meesha oo ka yahay moga dishu waxaan ku bedeli karaa banaadir waxaan leeyahay replace all dhammaan raadi Muqdisho 5 ayuu noqday waana la bedelay dhamaantood waxa lagu bedelay banaadir ayaa lagu bedelay marka find replace way isla shaqeeyaan findiga raadin kaliya ayay noqonaysaa marka qaarkood waxa laga yaabaa raadintii inay ugu filnayna u baahan tahay in amba hal magac inaad bedeshid amba dhammaan magacyadaas aad raadinaysid inaad magac kale aad ku bedeshid dokumentiga dhan saameyn ku yeesho kor ayaan ka xirayaa close ayaan leeyahay amba kor istalaabkaas ayaan taabanayaa dokumentiga aan bedela ayaan haystaa haddii aan rabo san inaan ku save gareeyo control s ayaan taabanayaa amba save taas yar ayaan taabanayaa si aan u keydiyo marka dokumentiga Word-ka aad qoraysid inta badan af Soomaali ma yaqaano marka qaarkood af Soomaali marka aad qortid oo tusaalaan aniga magacayga waa Cabdi
markii aad qoraysa Soomaaliga normal wuxuu sameeyaa hoosta ayuu wuxuu ka marinayaa fariiro guduudan taas macnaheedu waxa waa ereyga meesha ku qortay aniga ma fahmin marka grammatically ayuu u fahmi waayaa waadkay barnaamijyada kale waxay programsiin English ahaan Soomaaliga ma aha luqad ay fahmi karaan marka rabtid ereyga in aad saxdid amba grammatically hubisid ereyga ayaa kor imaanaysa korkiisa kasarka meel kamid ah ereyga ayaa ka kor boodinaysa right click ayaa leedahay wuxuu ku siinayaa wixii u dhow dabcan English ayuu soo qabanayaa wuxuu isticmaalayaa dictionary asaga gudihiisa ku diyaarsan marka wuxuu ku leeyahay intaan mid kamid ah miyuu noqon karaa banaadir af Soomaaliya oo qoray banaadir ma fahmi karo hadii aan rabo ereygaas in uu iska dhaafo ignore all ayaan taabanaya si uu iska dhaafo ereygaas hadaan u baahanahay inaan barane waxaan leeyahay add to dictionary-ga iigu dar ereygaas markii aan xarafkiisa qorid aan ku bilaabayo inuu hore ka soo qabto hadaan u baahanahay hore iska saxane aad correct ayaan ka dhiganaa bal markaan ignore all ayaan leenahay wixii banaadir oo dhan uu iskaga soo tagayaa bacdama aan dhahay banaadir sidaan aan rabaa inaan ku haysto bal erey English ayaan qorayaa waana qaldayaa tusaale ahaan waxaan qorayaa student normally student sidaas ayaa loo qoraa waxaan raacsiinayaa xaraf I ayaan raacsiinayaa si aan u qaldo hore wuxuu ka soo saarayaa kala rayo marinay wuxuu ku leeyahay warani ereyga ma fahmin right click ayaan taabanaya ereyga ugu dhow wuxuu ku leeyahay amba waxa isticmaali kartaa student oo hal arday ka dhigan kartaa amba jamac ayaa isticmaali kartaa meesha tida ay ka dambeysay s ayaa isticmaali kartaa students ardayo marka student ayaan leeyahay isticmaal marka ereyga sidii ayuu ku saxayaa marka hadii English aad isticmaalaysid ereyada ay ka wareeraan waxba kama walwalaysid waxa waa qoranaysaa ereyga u dul istaagaysa waxa leedahay bal iga sax ereyada si uu kaaga saxo hadii ereyga aad rabtid inaad bartid waa bari kartaa tusaale ahaan meeshan waxaan ku qoraynaa cantar ma yaqaano waa baraynaa cantar right click ayaan leeyahay waxaan leeyahay add to dictionary igu dar cantarka mar dambe hay weydiinin markii aan ereygan marka aan qoro cantar hadii aan qoro oo enter aan dhaho wuu yaqaanaa waa soo baray marka qaabkaas ayuu ku fahmayaa ereyada amba waa iska ignore garaynaysaa waxa leedahay sidaas igu hay amba hadii English oo yahay mid ka saxsan ayaan qaadanaysaa amba waa bari kartaa xulaysa male hadii la yiraahdo maanta meeshaan aan ku joojinaynaa casharada soo socda meeshaan ayaan ka sii wadi doonaa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh